وغناك قبل فقرك وفراقك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ودردارا إيوانك سعط قف والبو أمد محمد كمده إلى قيام الساعة. وحونكو يري نبي ننكاسي كفا إليس شن أريمود أو نلش على صومرا إنتيسن كهليلين شن كلا أو كلها ردونا وشن نعمة أو قيمة وين كله نلش بني آدمك أو الله أود يخو روح والبا أو هدي آدم كفا إليسن دبدن بأو أركينين ogow waxay kugu dhaafi doonaan sida habeenkii xalay oo tagay ma soo celin kartaa xalay waa su'aale jawaabtaasi adiga laga sugayaa. dardaaranka koowaad ka faa'iidayso dhallinyaronimadaada intaadan gaboobin ama aysan ku helin duqnimo oo fadhi ku dirir iyo dagaal qabyaalad aad ku cirowdo ood ku dufowdo adoo dulli ah. tamarta kugu jirtaa ha ku dhumin meel cidla ah ee ka faa'iidayso dadkaaga iyo dalkaaga u faa'iiday oo ha yaraysan wanaagga aad ummadda tari karto. mustaqbal fiican dhiso ood ku badbaado kuna liibaanto adduun iyo aakhiro. dardaaranka labaadna ka faa'iidayso caafimaadkaaga intaadan xanuunsan ama aysan jiro xun ku curyaaminin oo sariirta ku saarin ood dhaqaaqi kari weydo. caafimaadka intaad leedahay noqo ruux waxtar leh si aad u noqoto kuwa harka allah geli doona. noqo shaabun nasha'a fii cibaadati illaah. ha sugin ilaa ay jiro xun ku soo weerarto oy ku dabar goyso markaasi maxay shalayti kuu tari. dardaaranka saddexaad ka faa'iidayso haninimadaada ka hor inta aysan noloshaada daboolin faqri iyo saboolnimo. ogow lacagta waa wax yimaada haddana kaa taga oo ku dhaafa. lacagta ku soo martaa ha kala bakhaylin jimciyaadka khayriyada ah. ka qayb qaado quudinta masaakiinta, dhisid masaajid, ceel qodis, kafaala qaadid agoon, sadaqa bixinta badso. khayr walba oo ku soo mara ha ka gaabin inaad wax ku bixiso inta aadan gaarin xaalad faqri ah oo aad weydo xitaa xabbad timir ah oo aad sadaqaysato. dardaaranka afaraad ka faa'iidayso firaaqadaada inta aadan mashquulin ka hor. ruux walba waxaa soo mara wakhti yar oo uu firaaqo leeyahay loona baahan yahay inuu wakhtigaasi firaaqada ah kaga faa'iidaysto wax manaafacaad leh oo nafsaddeena faa'iido u ah, ehelkeena faa'iido u ah, dariskeena faa'iido u ah, mujtamaca guud ahaanna faa'iido u ah. haddaba ma ka faa'iidaysanaa wakhtiga waa su'aale oo maalin walba qur-aan ma akhrisaa wakhtiga firaaqada. diinta wakhti ma gelisaa inaad barato mise waa iskala weyn tahay. ehelkaaga iyo qaraabadaada ma xidhiirisaa. dadka xanuunsan ma booqataa si adna laguu soo booqdo markaad xanuunsato. deriskaaga ma tustaa quruxda islaamka mise waxaad aaminsan tahay gaalka xaq deris kuguma leh. mise firaaqada waxay kaaga dhuntaa ood ku dishaa killing time sida ay yidhaahdaanba si aadan ogayn oo buufis xan iyo warxumo tashiil aad bulshada ku samayso ilaa la waayo qof wanaag wada. ogow markaad mashquusho wax aad ka gaari karto ma jiraan. dardaaranka shanaad ee ugu dambeeya wuxuu soo koobayaa maqsadka lagu abuuray. ka faa'iidayso noloshaada inta aadan dhiman oo xabaalaha lagu geynin. ogow qof walba waxaa soo marta cimri xadidan oo uu nool yahay waxna qabsan karo kadibna waad geeriyoon waad dhimanaysaa waxna ma qabsan kartid oo adigaaba u baahan cid ku qaada oo ku dhaqda xabaalahana ku dhex dhiga. godkaasna lagaaga soo tegi doono adoon awood lahayn aan dhaqaaqi karin. walaal noqo qof caaqil ah oo ka faa'iidaysta dardaaranka uu siiyey nebigan ku jecel oo raba inaad deriskiisa noqoto filfirdowsi alaclaa in shaa allah. maanta laga bilaabo ha sugin daqiiqad kale. haddaba ka bilow oo fariinta gaarsii walaalkaaga aad jeceshahay.